السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وناكسان داوديال ميل كستو aad hawada nagala socotaan. Kusoo dhawaada barnaamijkayga waraysiyeed oo toddobaadkan oo noogu marti yahay Maarey ku-xigeenka dekada Berbera Cabdilaahi Xasan Mataan oo nagula sugan stuudiyaha telefishinka ee magaalada Hargeysa. aad iyo aad bad Maarey mahadsantahay. adiga mudan waan u mahadnaqayaa bahda maxay ahayd bahda studio-ga iyo telefishinkaba waa tahay Maarey dekadan aad Maarey ku-xigeenka ka tahay horta Berberaad ka timi magaalada Hargeysa nagula sugantahay bal waxaan war naga siisaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee dekada maadaama maalmahan ayna soo dhaafnay ama mawsimkan ay ku jirnay xilliga Soomaaliland ay dhoofiso xoolaha ugu badan. بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waa mahadnaqayaa bahda Saab TV inta kadibna dhaqdhaqaaq wanaagsan baa runtii Berbera ka socda oo ku saabsan waa xilligii xoolaha la dhoofinayay waynu ogeeyno muddooyinkii u dambeeyay xooluhu way inaga xidhnaayeen laakiin waa la fasaxay muddadii xajku soo galay waxaan loogu talagalay markii hore in xoolo gaadhay 1 milyan ay ka dhoofaan laakiin xoolo ka badan 1 milyan ayaa ilaa iminka ka dhoofay waxna kullee way yar harsan yihiin hadii Ilaahay ka dhigo marka dhaqdhaqaaqu aad iyo aad buu socdaa waana xilligan oo kale dekadu ay aadka u camiran tahay inta badan inagu dekada wuxuun ka soo dejinaa laakiin xilliga aynu wax ka dhoofsano waa xilliga yar ee kooban ee arafada ee xajka lagu jiro xoolo aad iyo aad u fara badan baa laga dhoofiyay maraakiib fara badan baa yimi weel fara badan baa yimi oo maraakiib iyo doonyaba leh waa xilliga marka ay dekadu ugu ciriirisan tahay marka mararka qaar koodna laga yaabo periodiga koowaad in xoolaha la siiyo badeecadaha kale ay ka yara habsaamaan waayo dekedeenu aad bay u koobantay watay Soomaaliland sidoo ognahay qaybo badan oo kamid ah waxa ka dhacay sanadadii la soo dhaafay ama sanadkii la soo dhaafay abaar baahisan oo xoolo badan ay ku dhinteen dhoofka xoolaha sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore wuxuu kaga duwan yahay marka hore maxay ahayd xoolihii abaar baa ka dhacday of course xoolo laakiin igama dhamaan waynu haysanaa xoolo badan baa baxay dad badan baa ku cayroobay aad baynu uga xunnahay waatan dawladdu ay u gurmanayso xoolaheenu laakiin aad bay u badnaayeen 20 milyan baa lagu qiyaasaa arigeenu kaliya waliba 10 sano u dambeeyay caafimaadka xoolaha aad baa loo siiyay wasaaradda caafimaadku xil gaar ah iska saartay wasaaradda waxaan sheegay xanaanada xooluhu ilaa 30 milyan anu ku qiyaasi karaa inaynu lahayn marka xoolihii may wada bixin waxba ka jooga mid kale xooluhu xad ma laha dekada Berbera xoolaha ka dhoofaa inta af Soomaali ku hadasha ilaa Kenya ka yimaada Ethiopia ka yimaada Soomaaliya ka yimaada meel kasto xoolo lagu dhaqdo Soomaali joogto waa dekada u furan Berbera ay xoolaha ka dhoofsadaan sidaas aawadeed marnaba abaar kasto dhacda hadana xilliga hadii la helo xoolaha in la iibsado xoolo ka dhoofo dekada ku filan waa la hayaa xoolo in badan oo kamid ah wadankeena ay ka yimaadeen in badan oo kalena dhulka kale Soomaalidu degto ayay ka yimaadeen watay sidii ognahay dekada Berbera waxa lagu wareejiyay shirkadda DP World oo bilihii ugu dambeeyay maamuleysay maxaa isbedelay dekadu samaysay tan iyo intii DP World lagu wareejiyay su'aashaas waa su'aal aad iyo aad fiican sidaan la socono DP World baa lagu wareejiyay kadib markii dekadu maalgelin ballaaran ay u baahatay dekadeenu waa dekad kooban Ruush iyo Mareykan baa inoo wada dhisay Ruushka 300 mitir weeyaan Mareykankuna 350 bay ahayd 650 weeyaan dekadeenaasi dekedeenu markii hore local baa lagu talagalay inay Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland ku hadla ay anfacdo ama isticmaalaan laakiin iminka international bay noqotay wadamo badan oo Ethiopia ka matay baa isticmaala South Sudan baa mararka qaar kood wax uga soo degaan oo caawimooyinka oo kale Yemen baa iminka wax laga isticmaalayo hay'adaha UN ay wax uga soo degaan ifan Kenya ilaa Kenya geeska Afrika iyo wadamada inoo dhawaa Carabta wixii la geeynayo UN ta iyo WFP halkan uga soo degaan marka waxa weeyaan wadakad bay noqotay caalamiga sidoo kalena Ethiopia aad bay u isticmaashaa inkastoo la markuu yar yahay hadda waxa loo baahday marka dekedeena inay la tartanto dekadaha kale ee caalamka oo dib u habeyn lagu sameeyay tusaale ahaan waxa iminka dekada lagu qiimeeyaa inta container ka soo degta inaga sanadkii 2015kii 30 container baa ka soo degay wax la yiraahdo 20 tan baa marka 20 tan iyo 40 tan baa container marka 20 tan baa la isugu celiyaa
sanadkan sanadkii 2016 ilaa iyo adigu dhowr iyo 40,000 oo markay ayaa ka soo degtay waxaan filaynaa iminka sanadkana 2016 inay korodho halka 50,000 ay Soomaaliya ku Djibouti ilaa 1 milyan oo TU ba ka soo dega Mombasa na way ka badan tahay labada dekedood ee u dhaxayna inuu tartanku inaga dhaxeeyo dib habeen baa lagu sameeyay sida awoodeed si aynaan uga harin tartanka caalamka iyo isticmaalka dekedaha waxaa noqotay in dekadii la maalgeliyo maalgelinta Soomaaliland lacag ku filan ma hayso dabadna waxa loo baahday shaqo inaynu samayso u yeedhano cid inoo maalgelisa oo inaan la maamusha dabadna wadankeena inuu dariskan hay islaamka imaaraadka ama Dubai laakiin maxay isbedelay maareeyay jiray ilaa hadda wax weyn baa isbedelay runtii wax isbedelay waxa weeyaan dekada hadda imka gasho aad iyo aad baa looga shaqeeyay oo nadaafadeedu aad bay u fiican tahay xagga maxay ahayto iyadana shuruuciyo kala dambeyn wanaagsan baa loo sameeyay kaard baa lagu gelayaa sida loo imka loo soo galaa ma hawl yara dekadaha iyo airportadu waa isku mid labaduba waa ports meel midna diyaaradda waxay ka soo degaysay rakaabkeeda ka soo dega midna dekadaha Soomaalidu airportka way taqaana aad uma gasho laakiin dekadaha qof walba iska galaa marka laakiin security iyo nidaamkooda iyo systemkooda waa isku mid marka waxa weeyaan hab aad iyo aad u wanaagsan bay keeneen oo la raaco runtii qof aan imika card sidan ama visit sidan iskama galo halka aad iyo aad bay uga hagaajiyeen shaqada shiftiye ka dhigeen 3 shifti oo kala dambeeyay xilli walba imika shaqadu way ka socotaa muxuu ahaa berbera inkastoo anagu markii aanu nimi aanu taa wax ka bedelay anagu laakiin shiftigu baa shaqeyn laakiin iyaga dhibaatooyinba imika 3 shifti bay leedahay waxa iyaduna jita kala dambeyntii nidaamkii qalab badan bay shaqaalihi u koontay oo protection ah si markaas loo yareeyo dhaawacyada sidoo kale xuquuqdii shaqaalaha ayaa kor loo la sugay iyagana shaqaaluhu waxay leeyihiin wax loo yaqaano insurance kala duwan bay ku jiraan oo ah kuwa shaqaalaha barmanka baan jeedaa shaqaaluhu waa kala nooc shaqaalaha barmanka ee contract ay la gashay DP World iyaga oo shaqeysa waxay leeyihiin markaas insurance ah life insurance oo qofka haduu geeriyoodo kala iyo mid marka qofka haduu dhaawacmo marka sida awoodeed isbedelka faraha badan isbedel fiican baa halkaas ka muuqda wata maray arrimahan adii sheegayso dhan imika waa shaqadii shirkadu ay hagaajisatay oo sidii meeshu shaqeynaysa isbedel dhaqaale la sugay dekaduna waxay ahayd isha kaliya dhaqaale Soomaaliland ay ku tirsantahay marka dhaqaale intii aynu haysanay ka fara badan iyo macmiil ku soo xidhatay dekada oo maraakiibaha fara badan baa la sugayay arrimahaas isma bedeleen Soomaaliya arrimaha doorta wali waqti aanu aad u qiimeeyno horta yaan salfadeed kaliya nagu sheeray Soomaaliland yaan horta ina qaaday waqti aynu ku qiimeyn 6 bilood bay hadda joogtaa waa inay la qabsato inayna la qabsadaan systemkeena nidaamadeena iyaguna standard ay ku shaqeeyaan iyo system bay leeyihiin marka horta too early weeyaan in la yiraahdo tolo dadka qaar baan arkayo aad negative uga marka waxa weeyaan so far maraakiib fara badan oo inoo timi way jirtaa waxaan ka mid ah mid ship line oo yaana maraakiibtan mar walba containerada keenta intii ay joogeen buu runtii inoo yimi CMA baa la yiraahdaa waa shirkad Faransiisa waa qayb bay ka ahayd marka imaatinkoodaasi maraakiib kalena way jirtaa sumcadda Soomaaliland kor bay u kacday markii hore maraakiib badan bay ku yar adkeen inay timaado laakiin marka la yiraahdo DP World baa maamusha sumcadeena kor bay marka iyo berbera iyo sumcadii Soomaaliland marka arintaasi runba aad bay kor ugu qaaday sidaas aawadeed dhaqaaluhu intii hore labadii bilood u dambeeyay dabeelo aad u xoogan baa ka dhaca magaalada waa sababta cabashooyinka markaasi ay aad ka wada baahmisarku ay keentay heshii marka arintaas wax weeyaan dabeelo aad u xoogan baa horta xilliga samarka ka dhaca ama xilliga xagaaga waxa kale oo iyaguna jira temperature-ka aad iyo aad u kululaada kuwaas oo dhan waxba kama taraan mushkiladaha waxa kale oo jirta iyana isticmaalka wixii laga dhoofiyo inuu sheegayno waxa soo adhay iyo iba dekada berbera xilliga ka dhoofaan malihin markaas si termino kala gaar ah halkii baynu leenahay oo labada afar markab ay ku xiran karto intaas soo markabna way soo taagtay marka maxay ahayd de weelka aynu haysano baa aad iyo aad runtii u kooban taasa markaas cabashada keentay wata cabashadu iyo hanoo dambeeya isbedel dekada ah xuluna u dhoofi jireen marka hore maraakiibtuna way soo xidhan jirtay maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin oo SAB TV warramay wuxuu sheegay in wax isbedelaha muuqda aanay dekadii ku soo kordhin ilaa hadda adiguna isbedel balaaray ma sheegin soo lama oran karo ilaa hadda isma bedelin way isbedelka doonayaan maxay tahay dadku haday doonayaan terminalkii oo la dhisay oo kale
muddo sanadaba nimanka kan heshiis kula galay in terminalka koowaad lagu dhiso arrintana dib loo eego muddadii may gaadhin 6 bilood baynu iminka joognaa xoolaha dhoofaya iyo qalabkii oo yar gabaabsi noqday qalabkii cusbaayo ku talagalay inuu yimaado ayaa horta dibudhac uu ku yimi waxaydana julay bay yimaado xilligan aan howluhu bilaabin qaarkood markaa way yimaadeen kuwa kalena ilaa iminka imanayaan October ba qaar uu imanaya way u soo socdaan marka waxa weeyaan cabashooyinka caynkaasi sababta keentay markaa in dekadu yar mashquulsho alaabta ay dib u reegto waa kuwa laakiin se iminka waxaanu wax badan ba isbedelo systemkii nidaamkii structurekii iyo shaqadii iyo shaqo wanaag fiican bay muujiyeen habka xoolaha oo kale isbedelka yimi xoolaha marka la dhoofinayo waxay u sameeyeen dhul geedo xooluhu ay soo maraan ayaa jirta way adag tahay waagii hore dhul badan baa u banaanaa xoolaha hadda xooluhu markay dekada ku socdaan dhulkii badnaa intii badneed waa tii la qaatay meel badan oo ay xooluhu markaas diiq bay ku tahay inay maraan nidaam bay arrintaa u sameeyeen geed bay u sameeyeen xooluhu ay maraan oo aanay meel kale u lexleexan toos intay halkaa ka soo galaan markabka ay u galaan waa ta fududaysay markaas in xoolo badani ay inoo dhoofaan kuwaasiba waxay ka mid tahay waxyaabaha cusub ee inoo keenay baamistarkuna inkastoo xoolahaasi markii hore dhoofi jireen Somaliland iyo DP World waxay ku heshiiyeen ugu weyn waxa weeye dib u dhiskii dekada dekadii waa dib loo dhisay oo la casriyeynaya qalab casri ah la keenaya baa la yiri sidoo kale dekad labaadna waa la dhisaya ilaa hadda oo muddo 6 bilood sida sheegaysa laga joogo may bilaabin hawshaasi xagee dib u dhaco ka yimi maxaa isbedelay wax dib u dhac anigu ma arko wali waxa weeyaan markii hore waxa ahayd in tan la qalabeeyo oo qalabkaasi dib u dhacay taa iyada waynu aqoonsanaynaa in qalabkaasi dib u dhacay DP World markii berigi dhawata baamisarku wada hadleen arrintaasi faham bay ka muujisay marka waxa weeyaan iminka canaanta ugu yar badan malaa waa taa qalabkii wax maraakiibtan lagaga soo dejinayay oo kuwii horena maintain u baahan yihiin qalabkii cusbaan ay keenin sidaan la socono DP World siday noo sheegtay standard bileed qalab cusub iyo shirkado muxuu ahaa waaweyn wax ka galataa wax second hand ma keento marka waxa weeyaan arrintaas taasi waxay keentay dib u dhaca marka heshiisku waxa weeyaan marka hore inay qalabeeyaan dekada tan hadda aan isticmaalo dabeetana ay dhisaan terminal containerada u gaara oo dekad labaada taas marka 75% la isticmaalo ay dhisaan dekad saddexaad oo filayo inay noqon doonto xoolo ay ka dhoofaan marka oo wixii imika way isku wada jirtaa meel qudayno wax wada sameynaa marka kuwaasna muddo sanad baa la yiri muddadii sanadka hadda lama gaadhin 6 bilood baynu hadda maraynaa marka waxa weeyaan in waynu ku sugaynaa taa waana dhowrayna in insha Allah taala ay dhaqso ay u bilaabanto waxaan filayaa in ay ugu dambeyn ama sanadka dhamaadkiisa ama sanadka cusub insha Allah taala ay arrintaasi ay bilaabana ilaa hadda laakiin in wax durdaar DP World ay keentay oo leedahay way keeneen dib u dhaca aanan dhismihii bilaabin waxay ahayd in markiiba ay shaqadooda bilaabaan oo inay ku shaqaystaan miyay qurux badan tahay dekadu siday u dhisnayd inay dhismaha bilaabaan soo ma ahayn iyo qalabaynta taas heshiisku uu saamaxaya inay dekada ku sii shaqeeyaan oo iyada marka hore inta lagu shaqeeyo qalabeeyaan dabadna dekada cusub ay dhisaan marka sidaan kuu sheegay muddo sanad gudaheeda ayaa marka heshiisku dhigayaa in ay ku dhisaan markaas dekada ama ku bilaabaan dhismaha dekada cusub sidaa awgeed muddadii wali maynaan gaadhin oo heshiiskiina waa caynkiisii iyaguna diyaar bay arrintaasi u yihiin inay tan marka hore qalabeeyaan dabeedna ay bilaabaan dhismaha muxuu ahaa dekada cusub watay markii dekada la kareynayay wax dadka bulshada oo markaa xilliga ku kacsanayd dekada in la wareejiyo waxa lagu dejinayay mashaariic fara badan oo berbere laga fulinayo marka laga tago dib u dhiska dekada oo ay ka mid tahay mashruuc korontada ah oo kale ay ka mid tahay meel kalluumaysatada la maalgelinayo hoteelo 5 star oo laga dhisay berbere kada dhaqaaliyo kor u kacaya haddii aan weli dhismihii dekada iyo qalabaynteedii DP World aanay bilaabin ballanqaadyadaasi si hormoobayaan bay kula tamarayeen oo ballanqaadyadaasi waa laba qaybood qaybo waa qaybo maalgelina heshiiskan Somaliland ay la gashay DP World waa laba qaybood mid waa dekada oo aabal taa loogu mashquulay waana tan imanka ay wado ee lagu wareejiyay midna waa free zone wax la yiraahdo free zone ka maalgelin fara badan oo caalami ah dadka Jabal Ali intaas oo kun oo shirkadood baa jooga ilaa 250,000 oo qof baa ka shaqeeya Somaliland waxay u socotay oo kaliya ma aha
in dekeda la maamulo laakiin waxay doonaysaa maalgelinta caalamiga ee Jabal Ali jooga ee DP World ku xidhan in geeska Afrika iyo berbera loo soo raro sida awgeed free zone-ka ayuu taasi keenaysaa free zone-kuna wax kale maaha waxa weeyaan waa in cashuur dhaaf loo sameeyo shuruucdana loo dabciyo meel gaarana loo sameeyo caynkaas markaasi ah oo cashuurta iyo muxuu ahaa cashuur dhaaf loogu sameeyo marka taasa ay la socotaa hoteeladaasi taasay la soconaysaa markaasi warshado xitaa waaweyn oo halkan laga dhiso hoteelo dalxiisayaal iyo wax kale fara badan Soomaal garan marka ta ka muhiimsan dekada ee dhinac socotay ee Soomaalidu laan iyo xukuumadooda aad ka u daneynaysa waa taa free zone-kii hadda meel wacan buu maraya isagana insha Allah heshiiskii dhawaan baan furanaynaa in la cashuuraha ka cagan ganacsiga cashuuraha ka cagan weeyaan marka taasa ka muhiimsan dekada waxyaabo badan oo ganacsiga ka mid ah bangiyada adduunka in filanayna yimaadaan teknolojiyada adduunka in halka kan laynoo keenayno filayna taasa ka muhiimsan marka dekadu service yaro la bixiyo weeyaan laakiin maalgelinta ugu weyn halkaas ka imanaysa taa waxa dhinac socota iyadana wax loo yaqaano social protection oo yaani dadka in wax lagu celiyo sidii dekadu markii ay shaqeynaysay waxa soo gala ay wax badan dadka ku celin jirtay iskuulo badan iyo malcaamado fara badan iyo dad badan loo muxuu ahaa loo caawin jiray Soomaaliland beeshida dhaqaale uga hayd loo caawin jiray wixii dekadu caawin jirtay DP wala way qaadatay sidii dadku u caawisaa oo muxuu ahaa wixii de caawimo ay u bixisaa marka hadda waxa weeyaan biyay sameynaysaa ballaaran DP World oo sidaynu ognahay xukuumadda Axmed Maxamed Siilaayo iyo muxuu ahaa wasaaradda waxay u sameysay markii hore Dubaaruma biyo ka iman jireen hadda laakiin muxuu ahaa Faradeero ayaa iyadana biyo ka yimaadaan oo labadaas isna siiya ceel saddexaad bay markaas sameynaysaa oo u dhow halka shamiitada hadii Ilaahay ka dhigay free zone-ka u dhow oo magaalada biyuhu ay ka hesho dhakhtarka ayay dib habeen ku sameynaysaa iyo qalabeyn sidaan la socono caawimo badan bay ka geysatay iyo raashin iyo biyaba abaarihii dhaweyto sida awleed caawimadeena iyo projectkaasna way dhinac socdaan waxaan la filayaa inay markaas si laba laabto si kordhiso marka hawsha ay si korodho wata mari adigu waxa taymari ku-xigeenkii dekada berbere madaxweynuhu magacaabay sidoo kale maareeyay dekadu lahaydna wuu jiray madaxweynuhu magacaabay iyo maamul dekadu markii hore lahayd maamulkiina waa joogtaan DP wala maamul cusub ay la timi oo iyadoo ay wadato oo dekadii maamulaysa maxaad idinku markaa imka hadda maxaad ka shaqaysaan anagu waxaanu ka shaqaynaa waxaanu nahay wax la yiraahdo Somaliland Ports Authority yaani dekadaha Somaliland dekada quraynu leenahay dadka qaar baa yiraahdaa waa waaxda farca badda kaliya farca badda waxaan waaxda badda waxaanu ka maamulnaa berbera laakiin dekadaha Somaliland oo dhan dekada yar oo badan baa jira kuwaas anaga in hoos tagaan Somaliland Ports Authority baan nahay ma ahayn marka horeba anaga maamulanay anaga iyo maaha wax cusub aniga maareeyo walow ay iska koobkoobeen badankooda ay kalluumaysi ay yihiin marka hadda dekada berbera wixii badda ku saabsan anaga maamula haday noqoto xidhista iyo furista maraakiibta waxaanu kala wada shaqayn joogta leelanahay muxuu ahaa DP World wixii cabashooyin ku yimaada magaranaysa ku adkaado waanu la xalilaa wada tashi iyo wada shaqayn joogta ana runtii waanu leenahay insha Allah waxaanu filaynaa marka dekadaha kale ee yaryar ee meelaha ku jirana ay ka mid tahay xiis iyo saylac ay ka mid yihiin iyo kuwa kale faraha badan liba in iyagana dib habeen lagu sameeyo insha Allah ta'ala duunyaha iyo kalluumaysigu waa isticmaal karaan dilay ka dhigo marka DP World shaqadeeda wadatay idinku wada shaqayn baa leeyahay anagu waxaan loo yaqaano port management ama maamulka dekada ee wax dhoofinta iyo dejinta DP World baa ku shaqo leh oo deemka maamusha maamul bay arinta u leeyihiin runtii anaguna wixii saboore loo baahdo ayaanu insha Allah ta'ala aanu ka caawino wada shaqayn joogta aba naga dhaxaysa anaga iyo dadka kale ee dekada ka xoogsada ama dekada muxuu ka shaqeeyaba cabashooyin baa jiray ka soo yariyay dhawaanahan ganacsatada Soomaaliland wax kala soo degtay dekada cabashooyinkaas maxay ku salka ku hayaan cabashooyinkaasi waxa runtii salka ku hayaan waxa jirta xilli saddex mas'alo ay runtii ugu muhiimsan cabashooyinkaas aan idhaahno xilligan lagu jiro ee hadda Malawi soo koobmaysaaba laakiin xilliga xagaaga dabeelo aad u badan baa ka dhaca muxuu ahaa xeebaha iyo wadankan oo dhan dabeelo ka dhaca laakiin halka xeebaha way ku sii badan tahay marka waxa marka qaarkood ay taasi ka liftaa in maraakiibtu ay soo xirmi karo weydo waayo waxa la eegayaa la asas gareynaya ama la eegaya riskiga in dekada ama maraakiibta kale weelka kale wax yeeli karaan marka sida awoodeed marka ay speedka uu aad dabeelaha xoogan ay dhacayaan
dib u dhac baa ku yimaada soo xidhistii maraakiibta waayo lama soo xidhi karo waxa laga yaabaa inuu khasaar badan geyso markabka la kontrooli karo waayo meesha lagu xidhay waa meel yar oo kooban taasi waa mid midda labaad ee iyaduna waxa weeyaan sidaanu sheegnay qalab la-aan way jirtay iyaduna oo qalabkii horena wuu soo yaro fadhiisanaya qalabkii loogu talagalay d b well loogu talagalayna weli ma imanin qaar wax iimi way jirta laakiin kuma filla qalabkaa dib u dhacayna way keentay xoolaha la dhoofinayo laftooda oo priority-ga koowaad waxaanu nidhi waxaa le xoolaha noolaha iskale xoolaha iyo dadka baasanjirka inkastoo baashinta badan maanu kasoo degin qaybta labaadna containerada dadka kasoo degaya iskale qaybta saddexaadna raashinka un geeska africa loo waday w f b du ay wado ayaa isna priority-ga koowaad saddexaada marka priority-yadaasina iyaguna markaasi xoolaha nool ayaa dee priority-ga koowaad le gelinka dambe iyo habeenkiiba xoolaha loo xidhaa si ay u dhoofaan waayo waqti yaro kooban bay socotaa waxaa kaloo iyaguna jira wax la yidhaahdo dee d b well ay soo kordhiso safety standard yacnaa badbaadada heerka badbaadada ee dadka iyo muxuuha noolaha halkaas joogaaba in la badbaadiyo ayaa priority-ga koowaad yahay marka shuruuc badan arrintaa ku saabsan bay d b well soo kordhiso standardka caalamiga ay ku shaqaysaa taasina kolley inagu markii hore arrimaha safety-ga aadka priority-ga koowaad maynaan siin jirin laakiin performance-ka in ay wax socdaan oo shaqadu inay socoto ayaynu siin jirnay marka taasina kolley iyaduna waxbay ku leedahay arrinta maxaa la yidhaahdaa hadda arrinta cabashadii sidii hore kolleyba maaha waan garan karaa markaa nin baa mushtara oo ganacsigiisii keeno iidda ugu talagalay oo markabkiisii aan lasoo xidhin la yidhi xoolaha laga dhoofinaya ama container baa halkan kusoo xidhmaaya inuu dee cadhoon karo gaar ahaana kuwa dib usii dhacay waxa weeyaan waa maraakiibta abudabay ka timaadee general cargoga sidee ee aan lahayn wiishka maraakiibta qaar baa wiish leh marka kuwa aan wiishka lahayn muddadii horeba way nagu raagi jireen runtii kuwaasaa runtii in hawle ay ka jirtay dekeda oo arrimahaasi markaasi ay yar mashquulisay oo performancekooda ay hoos u dhigtay baa runtii cabashadaa keenaysay d b well arrintaa bacmistarku way iska arkeen way ka garaabeen way ka wada hadleen wixii tanaasulaad ay u samayn karaysay markaasi way u samaysay haddana arrintaasi inay hoos u dhacdo ayaynu filaynaa mar haddii iminka adhigii badnaana dhoofay in markaa arrimuhu ay caadigeedu kusoo noqdaan baynu filan hadii laga ka dhigo laakiin mari gudida ganacsatadu waxay cabasho gudbisay madaxweynaha warqada qortay sida la sheegayo dhawaanna way ahayd ma markaa ay cabashada madaxweynaha qortay kadib ay guddidu is arkeen mise waxaa horeysay markii d b well ay is arkeen ganacsatadu wallahi horta xilligaa ay madaxweynaha warqada u qoreen ma hubo waxaan si filayaa in kadib ay is arkeen waayo madaxweynuhu markaan is arkayeen de waabuu maqnaa marka ii sheeg xilligaa iskuma beegi karo warqadda ay qoreen kulli anigu koobigeedii warqadda amaan arag runtii marka waxaan anigu ogahay markaa cabashadu soo yeedhay ay ganacsatadu aadka u cabatay in xukuumaddu ay wasiiro noo soo dirtay markaa si ay arrinta noola xalilaan ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga wasiirka amuuraha maxay ahayd dibadda wasiirka maaliyadda iyo markaa sarkaal sare isaguna ka socday madaxtooyada marka arrintaa muddayna la joogeen dhowr cashaa ganacsatada iyo qeybaha kale kala duwana bulshada ayay is arkeen arrintaana waxaa lagu heshiiyey markaas in xal lagu raadiyo annaga maamulkaygii dekeda oo xukuumadda uga wakiila arrintaa iyo d b well iyo intii kale ay xukuseynaysay baana lagu yiri marka arrinta xalila shirar kala duwan baan arrintaa ka yeelanay waxaana u eg tahay marka inay soo afjarantay ama lays afgartay in la wada shaqeeyo oo hawsha ay halkii kasii socoto watay maray waxay leeyihiin ganacsatadu waxaa jira cabashooyinkooda waxaa ka mid a lacaga badan oo lagu kordhinaya khidmadda adeegii dekeda oo sida aad sheegaysid markabkii raagayo hoos u dhacay cashuurihii iyadana kor loo qaaday marka laga tago markabkaa raagaya soo ma jiraan lacago lagu kordhiyo ganacsatada khidmadda ee dekeda waxaa jiri jirtay runtii weli khidmad lama kordhin oo yacnaa tii hore jirtay lacag lagu daray ma jirto oo kolley heshiisku wuxuu dhigaya ilaa 6 bilood kadib bal in arrintaa dib habeen lagu sameeyo sidii hore ku socotaa waxaase jirta dekeda markii xukuumaddu maamuleysay qalabkeeda iyo wixeeda oo dhan dee waa la isticmaalayay sida geelaha waxragoo kale qalabka isticmaalayay iyo muxuu ahaa iyo Steve Adors qalabka isticmaalayay kuwii dekeda ahayd lagama kareyn jirin laakiin shirkad bareefada waa imka timi shirkadda bareefada waxay leedahay okay qalabka kan dee waa in laga kareystaa tusaale ahaan geelahoo kale ay dee qalabka markay isticmaalayaan iyaba waa shirkad bareefada kuwana waa bareefad
marka qalabka naga kareysay anagu xilligeennii markaa waxaa jirta waxyaabo fara badan oo caynkaas oo xukuumaddu ay dhabarka u ridan jirtay oo fududeyn jirtay laakiin mar haddii dee shirkad iyadoo private oo macaash dooni ay timi dee markaa dadku lamay qabsan waxaan dowladdu ay markaasi u tanaasuleysay dadka ay ku naas nuujinaysay baa loo haystay inay ma garanaysaa ay xaq u leeyihiin laakiin waxa weeyaan xukuumaddu dadkeeday ku naas nuujinaysay laakiin shirkad private oo hadda qabsatay dee markaa iyaga waa macaash doon markaa waa in dee lala macaamilaa iyagii naas nuujintii meesha dawa ka baxaysaa inkastoo aanay dee ka taganayn DP World lafteeda haddii si wacan loola hadlo oo wixii macquul ah DP World dekada waa laga kareeyay iyana macaash bay doonayaan wayna dee iska bixisaa qarashaadkii dowladdu ay ka doonaysay hadday tii sanadka hadii tii bisha ahayd ba ay noqoto shaqaalaheedii ay wax siisaa marka waxa weeyaan taa aawadeed dee waxyaabo badan oo markii hore bilaash ahaaba iyadana ka dhigtay markaasi lacag meelahaas markaa ka yimi meelahaas ka imanaysa laakiin weli lama tariiftii weli lama kordhin waana laga tashanaya insha allahu tacaala marka la kordhiyo waa tahay maray sida la ogyahay waxaa jiray waxaa la sheegaya oo shacabku sheegayaan jahwara dhinaca shaqada oo dekadii ka jirta markii ugu horreysay waxaa isku dhacay 2 markab oo aanay hore u dhici jirin dabbaa ka kacay sidoo kale marka dekada gudaheeda dhinacan safety inkastoo adigu aad leedahay shaqaalaha waxaa loo sameeyey qalab ilaaliyo protection haddana dhawaan waxaa la sheegay in qof ku dhintayba oo shaqaalaha mid kamid ku dhintay dekada dhexdiisa marka ay hawlahaas oo dhan jiray ganacsatada ay cabanayso cashuurihii la kordhiyey halkan maraakiibtii isku dhacayaan adeegii hoos u dhacay ma la odhan karaa heshiiska Somaliland DP World wada galeen Somaliland heshiiska kumay faa'iideen oo ku khasaartay maya waa too early baan warantaa waa arkaa Somaliland heshiiska way ku faa'iiday sababtoo ah horta sumcadda inuu ka helay baan wax loo dhigaaba jirin adduunka oo dhan international ma garanaysa arena markii hore cid taqaanay Somaliland baa dad yar baa yaqaanay iyo berbera marka horta promotionka ay inoo sameysay heshiiskaasi inoo sameeyay ayaa millions dollar isaga lagu qiyaasi karaa waa qodobka labaad horta cashuur lama kordhin baan ku leeyahay waxyaabihii soo degayay bilaashka ahaa dawladdu marka xilligeedaas oo lacag waxyaabo qaar kood laga dhigay sida qalabka iyo baabuurta ay isticmaalaan markaasi maxay ahayd oo nimanka la yiraahdo geelayaashu marka horta wax kale oo la kordhiyo caynkaas anigu ma ogi sidii bay tareefkii caadiga ahayd ba ku socotaa cashuurtana DP World shaqo kuma laha dawladda Somaliland baa ku shaqalay wasaaradda finance marka hadii la kordhinayo iyada kordhinaysa DP World waxay shaqo ku leedahay maaha marka taasina ma jirto khidmaadkii baa laakiin khidmaadkaas cusub ee lagu biiriyay markii hore bilaashka ahaa weeyaan wax meesha ku jira isku dhacan maraakiibta iyo isku dhaca taan ka hadlayadana marka taasan kula saxayay oo cashuur baa la kordhiyay khidmaadkaas isku dhacaas horta waa accident meesha hawl baa ka socota mar haddii hawlo socotana dhaawac baa imanaya dhimasha maraakiib baa isku dhici karta marka xilligan lagu jiray ee xilligaasa waa xilligan kuu sheegay oo duruufo fara badan baa runtii jiray waxaa jiray markaasi xooliyo dhoofayo mashquula oo la isku wada dhaweeyay maraakiibtii waa in la isku dhaweeyo si weelku inoo qaado 4 markoob ma garanaysaa waaweyn baa ku xidhmi karaa marka intaasoo markab ay inoo taagan tahay kulleyba hawsheeday kulleyba leedahay wixii ilaahay qadarayna wuu dhici karaa marka xoolo qaadayay ayaa la soo kaxeeyay markabkii markuu meeshii lagu xiran lahaa ku soo dhawaabo xumaade mashiinkiisu istaagay dadna controlkii baa ka lumay marka waxay isku dhaceen nasiib wanaag dekadii kuma dhicin markabkaasi wuxuu ku dhacay markab kale oo container sida marka waa accidentkuna meel walba ka dhaca baddu ka dhaca cirku ka dhici karaa dhulku ka dhici karaa marka waa wax accident oo lama oran karo marka awalba waxyaabo caynkaasi dekadii ka dhici kareen markab dhan baa dekada soo galay oo duqeeyay markii inagu joognay xilligii cigaal Allah yarxamay uu joogay dabadna dekadu marba burbur gaadho waa la dhisay dunida sidan looguma qaylin marka shirkad DP World baa joogta 2 markab baa isku dhacay maraakiibtana iyadu shaqo kuma lahayd Somaliland baa ku shaqalay anaga ku shaqalay waaxdeedu iyagu waxay soo xidhaysay maaha hada halkaas hal la ogaadee waxay soo xidhay baylowdadeena anagu aanu maamulo iyagu shaqo kuma lahayd waxay oranayaan halkaas markabkaas noo soo xidha anaga soo xidhna marka baylowdkeena iyo harbor masterkeena marka sida awadeed khalad iyadu lahayd taasi maaha lama oran karo waxaas ku yimi way inagaaba mas'uuliyadda lahayn iyagu ma lahayn accidentkaasna waa dhaco markabkaasna waa xumaaday markabkiina dib baa loo hagaajiyay kii kalena waa la hagaajinayaa dhaawac uu gaadhay dadka ku cawarmay awalba dadku way cawarmay jireen walow dee xilligan lagu jiro mala ay waxoogaa berihii dhaweyd dadku ay lahayn intii hore waa ka yara badanta shaqa haddii meel ka socoto
wuu dhacayaa markaasi accidentku waa dhacayaa dad baa ku dhaawacmi dad baa ku dhiman kara dad baa xitaa ku dhintay marka waxa weeyaan waxaas oo dhami waa wax shaqadu la xiriidha anigu uma arko inay la xiriidho markaasi shirkad cusub oo loo dhiibay xilliga anigu aan joognayba dee arrimahaasi way dhici jireen arrinta dabka laftiisu wuu dhici jiray oo xilliga kan lagu jiro waxaa jiray badeecad ka timi Sacuudiga oo Yemen u socotay oo inaga transit noogu timi oo ahayd in intaan kuleelka badan soo gaarna ayna dhaafto si ay u dhacdayba dib u dhac baa ku yimi labada container ala sun miisidin markaa sun ma ahayn alaab kiimika ah ahayd oo kuwan wax lagu nadiifiyo ah marka kuleel badan markii uu yimi xitaa wax kala daayo sharaabkeenan caadiga soodaha le Soomaaliya ayaa markii dekadu aad ku laato qarxa oo gubnishiya keena marka sida awoodeed anagu in wax dhibaato oo la socotay arinta so far reportkaas maanu arag alaabtaas marka way qarxday mid baa markii hore qarxay kii labaadna muddo intii ka dambaysa ayuu qarxay accident iska caadiya ayuu ahaa runtii waana ahayd in dee khaladka la sameeyay waxay qoladii bahalka keentay inay ku qoraan inuu yahay dangerous cargo yaana khatar inuu noqon karo dabna meel gaar oo la geeyay baa jirta laakiin kontaneerada baa la dhex dhigay taasna kulli qoladii dee ku shaqada lahayd arinta ayaa ka hadli doonta watay mari shaqaalaha jiray cabashooyinka soo baxay shaqaalaha dekada oo mudaharaaday oo cabashooyinkii la madaxtooyada soo gaadhay cabashooyinka shaqaalayadu maxay salka ku haysi shaqaalu waa laba qolo permanent ah oo yaana kontraagi markii hore shaqaale joogta ah shaqaalaha joogta ah markii hore dekada la bixiyay ama dekada dhiibad loo dhiibay waxay islaahayn tolo maxay noqon doontaa arrimuhu way mudaharaadeen way ku hor yimaadeen xuquuqdooda way doonayeen marka xilliga hore way jirtay tii marka kontraagyo ay la saxeexdeen markaasi shaqaale joogtada ah shaqaalaha marka hadda iyo jeer imka laga sheekeeyay hadla aan wali arintooda meel lagu tiirin waxa weeyaan shaqaalaha aan joogtada ahayn ay ka mid yihiin xamaaliinta ay ka mid yihiin waxaan jeedaa ay ka mid yihiin geelayaasho iyo nimanka stevedoreska la yiraahdo maraakiibta wax ka soo roga labada qolo waxa la yiri markii heshiiska la saxeexay DB Welma dad shaqaale qaatay maahan waxa la yiri waa shirkado private ah si private markaasi ha u shaqeeyeen shirkadoodana awalba dekada maamul jirtay shirkado ma ahayn marka private kulli in muddo abay ku yar qaadanaysa marka in la qabsadaan shirkad ay noqdaan DB Welna wali heshiis lama gelin marka dekad anagina waa naga tageen maamulka iyaga dekada SPA DB wala heshiis lama gelin marka meel dhexe ayay shaqaalahaasi ku yara dhaceen hadda laakiin heshiisyo iyo safagarad baa ka jiray DB Well iyo muxuu ahaa Stevedoreska in markaas qaabkii wacnaa loo wada shaqeyn lahaa sida markaas heshiis guud inta la gaadhayo in mid temporary lagu sii wada shaqeeyo la sameeyo sidoo kalena marka qoladaasi ay dhamaato iyagana waxay heshiis la galayaan qolada tan geelayaasha marka arinta ayada gacanta lagu hayaa insha Allah taala inta markaas shirkadu ay noqonayaan markaas private oo waaweyn oo iskoodu shaqeysta oo skillski iyo nidaamkii iyo wixii laga rabay leh inay markaas heshiisku meel gaar ah la sii galaan hadii Ilaahay ka dhigo saasa markaas imika watay ugu dambeyntii dekadii Berbera maadaama marka hore ahayd isha kaliya dhaqaale ee Somaliland ay leedahay marka xoolaha nool laga tago wax ka soo galaan wax laga soo dejiyo waxna laga dhoofiyo shirkadaas la wareegtay cabashooyinkaas ka soo baxay shaqaalihii iyo ganacsatadii ma oran kartaa Cabdilaahi hadad Mareek waxay dekada tahay Somaliland dekad labaad bay u baahan tahay imika xilligan loo dhiso ay ku shaqeysato ma horta dekeduhu inay iska bataan way fiican tahay wali mana dekadaha koobana jetiska anigu waan soo dhaweynayaa Somaliland waxay leedahay ilaa 50 meelood iyo wax ka badan dad eegta maamulka oo dekada noqon kara marka hal dekeduun horta inuu ma fila of course taas waxa jirta markaasi dekadaha yar yar ee kalluumaysiga ama dekadaha doonyo ay ka soo degi karaan ma garanaysaa haday tahay xaggan bariga haday tahay galbeedka haday tahay meelaha kan dhexe waa loo baahan yahay in dib habeyn lagu sameeyo laakiin tii aan kaliya lahayn ba inaan wali hagaajin halkii dekedood waxaan ugu leeyahay inta dekado badan la sameeyo hadda waxa inagu waajiba tan inaynu ka shaqeysano DB Well la hagaajino insha Allah taala iyagana waqti siino laynoo maamulo tan laynoo qalabeeyay marka hore ay programkaas uu inoo dhamaado dabadna aynu eegno inay nagu filan tahay in kale inuu dekada kale loo baahan yahay laakiin imika tii aynu haysanay ayaabaan u taag la'anahay marka hadaynu inana mid kale isku si qaar kuwa kale isku sii rarno anigu imika macquul iguma muuqato marka waynu teena focus ka saarnaa
dawlad iyo shacab iyo DP walba oo aynu teena dib u dhisana hagaajisana dabadna marka review lagu sameyn karaa maxaa markaas suurtagal ah watay ugu dambeyntii warar badan oo negative ah oo ku saabsan dekadib maalmihii ugu dambeeyay soo baxay dadkii aan dekadib ka yar shaqaysan yihiin si u shaqaynaysa hoos u dhacday baa leeyahay maxaad fariin u soo jeedinaysaa bulshada waxaan soo jeedinayaa horta dekadu waxa weeye waa public private company ayay ahayd anigu uga joogay shirkad gaar ah oo dawladda ay share ku leedahay hadda markii horeba ay jambaanu ahayn gaar oo sida marka shaqaalaha dawladda anigu kuma jirno oo ay jambaanu nahay wali sidii baan ay jambaanu nahay marka waxa weeyaan sida aawadeed waxaan waa business kale lama dacaydeeyo dekadu waxay kula jirtaa dekadahan kale aynu jiiraanka nahay bitartan kula jirtaa businesska hadda iska dacaydayso waxa weeyaan maraakiibtu hadday ku yimaadeen wada soo dhibaato maaha intan qaylinaysa isla DP wal hada yara ruux ama ku kacsan ama Soomaaliland dawladeeda yara ruux dekadu baad inaga dacaydaynaysay businesskii ugu weynaayeenu lahayn marka sida aawadeed waxaan leeyahay anigu waan garan karaa frustrationka dibudhacba bergi dhowtay yimi runtii oo DP walba aanu isla qarnay in dibudhac weyn uu yimi arintaasna way qaadatay marka DP World garowshiye ka bixisay waxaanay ballan qaaday inay wax ka qabanayso taasana marka insha Allah ka dhursugeynaa aan kula shaqeynaa laakiin min fadlakum waxaan leeyahay waxaan waa business lama dacaydeeyo oo hawlba ay kugu keenaysaa marka bal dadka sida wax u sheegayaan gaaran xisbiyada mucaaradka sida wax u sheegayaan ka kan dadka dadinaysa businesska dadinaysa awalba dalkeena lama aqoonsana maraakiib badan ayaa markaasi ay dhibaato ku haysa inay halkan yimaadaan insurance ma lihin beeleen waxaan kale ma lihin beeleen xitaa marka dhibaato ay gaadho lama aqoonsana beeleen Soomaaliland marka anyhow iyadoo restriction fara badan ina haysto haddana wixii inagu aynu iska dacaadeyno dibad albaabka u xiraysa marka wad furaysa marka leedahay inta halka soo taagto dekadiyadoo shaqeynaysa dekada way xidhantay waxana ka dhacday waxa ka dhacay dadka uu isticmaalaya ilaa waxaan maraakiibtan inagu ma lihin inoo keento badeecada kuwaas uun baa ka maqlayo dibadna waxa la oran karaa America aan u weecino marka arintaas fadlan ha laga dugtoonaado DP World waxay diyaar u tahay wixii lagu heshiiyay inay ka soo baxdo sida anaga noogu ballan qaaday insha Allah ta'ala anaguna waan ku daba joognaa marka min fadlakum hala samro wixii aynu ka filaynay iyo wax ka badan waynu ka helaynaa laakiin samar baa adduunka lagu gaadhay hala samro baan leeyahay watay aad baad mahadsantahay Maariya thank you adaga badan watay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa Maariya ku-xigeenka dekada Berbera Cabdilaahi Xasan Mataan oo igu waramayay stuudiyaha dhexe ee magaalada Hargeysa uu ku leeyahay Saab TV tan iyo intaynu barnaamij kala mid ay isugu iman doono dhamaantay waxaan idinkaga sii tageynaa nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh قروح له